Chief Caaqilka guud ee mid ka mid ah beelaha degmada Ceelaf Weyn isla markaasina ay weheliyaan waayeelka iyo waxgaradka beesha oo warbaahinta kula hadlay degmada Ceelaf Weyn ayaa markii u horeysay waxay ku dhawaaqeen xabad joojin waxaana waayeelkan waxgaradkan iyo cuqaashani ay soo dhaweeyeen go'aamo xukuumadda Somaliland maalmihii u dambeeyay ka soo saartay shaqaqooyinkii ka dhacay degmada Ceelaf Weyn shirkayga jiraad wuxuu daaran yahay galabta xabad joojin inaan ku dhawaaqno dagaalkii ka dhacay degmada Ceelaf Weyn iyo agagaarkeeda haddaan nahay beesha bohood waxaan ku baaqaynaa xabadda inaan joojino siday horena u joojinay horta shirkaygu wuxuu daaran yahay inaan xabad joojinta aqbalay qolada walaalayaal ay ku baaqeen dawladda iyo xildhibaanadu ku baaqeen anana waanu aqbalay waanu joojinay xabadda horta shirku intaas u daaran yahay inta kale chiefku wuxuu yiri xabadda anagu iska taagtaagan baan ku bilaabay codkiisa waan dhageystay kelmadda waxa la chiefo dinu weyn baa tahay maanta waxaynu sugnaa waa aakhiro oo qofku waxa wanaagsan inuu ku hadlo wax runa inta ifla jooganta aakhiro la jooga ka badan kulliba waayeel kama shaqeyn xabaddan iyo wax garatooni qadarun baa ka dhacay dhalinyaro wax ma garataa xabadaasu haddaad uga jeedo darar weynaan in lagu dilay nimana lagu dhaawacay oo halkaas ciladu ay ka fakatayna waa runtaa inaan yaraan cinda tashan baan marsaas ku furo ragna waa ku dhaawacmay ragna waa ku dhintay 12 bilood ka hor bay ahayd rag baa u xidhnaa intii ka dambeysay ilaa 9 meelood dhacdo ayaa dhacay oo dagaala oo aan ku soo qaaday oo mid walba aan ka cararay oo midna wax laga soo qaban maanta dhaweydna had galabay hay'ado niman guri iska dhisanaya barsaasta lagu bilaabay boho iyo Axmed Faarax waa lahaayeen way joogan waa la wareysan doonaa rasaastaas halka ka bilaabantay rag Axmed Faarax dib baa la rumaysan waayo rag Axmed Faarax ee joogay lagu riday rasaasta liir ka daayo wax soo indiriya hadilina ka daayo la yiri baa magaalada jooga waa la wareysan doonaa waana la wareystay waxaan leeyahay chiefo yeenan ku akhriseegin fidmooyinka soconaya hadalka cudur kalena in dadka la geliyo ma wanaagsana ogaal diidana Carabi leeyahay baa la yiri qadar yaqiintan in la yaqiin la qaato wanaagsan qadarka la rumeeyo hadalka rasaas anagu iska taagtaagan baan la ku ridi hadalka hadii lagu yirina hubi hadii aad u baradhana de ka istaghfiran layso baan chiefkana leeyahay nabadgelyo ina deeqda nin dhintana soo noolaan maayo nin walba nabadgelyo baa ku filan inta basaan ku baaqaya baaqayaguna anaga wuxuu daaran yahay haddaan nahay beesha Boho Faarax xabad joojin shaqaqadan ka dhacaysay Ceelaf Weyn maalmahan horena u dhici jirtay oo soo noqnoqonaysa xabad joojin waa sameynay oo 5 casho xabad ma dhicin nabadgelyona inaanu bixino dadka ku hawlan ee jecel nabadgelyada inay aslaaxdana aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa oo ay ka mid yihiin gudoomiyaha gobolka xildhibaanada wasiirka gudoomiyaha degmada iyo wixii kale Ilaahay ku soo daroba annaguna aad iyo aad baan uga shaqeynaynaa halkan waxaanu ka jeedinaynaa baaqa soo daaran sidii uu caaqilka hore sheegay shaqaqooyinka ku aadan degmada Ceelaf Weyn sida uu caaqilku sheegay xabad joojintii guurtida xildhibaanada gudoomiyaha ku-xigeenka golaha baarlamaanka wada saabka gobolka gudoomiyaha degmada tii ay ku baaqnooyadan ku baaqaw sidii baan ay yadan ugu baaqnay waanuna aqbalay